halkan iga dambaysa waa tiyaatarkii magaalada Laasqoray ee Bersamaagi wadnaha isaroo dhiiga sayrinayo ku jirtay heesta marka halkaas fanaaniintu waa iman jirtay waa ka heesi jireen ilaa la wada qaad Laasqoray la wada qabay baasha hilib la wada raac fanaanku halkaas soo istaagi jiray uu ku heesi jiray heeladu waa hana Laasqoray iska haasanaysaa istiri hela Laasqoray ku hadal riwaayada maanta ana fanaan iska dhigay meesha cidlaan ka helay hadii waaba waagi suuleeyay ku soo dhawaad maasantiin baraaya liibaxbaatay guulayso magaalada haye rag dhalay waxaanu tagnay magaaladii xadaaradda iyo ilbaxnimada hubsan doontidii aan habayne heladu warshadii kalluunka ee Laasqoray oo mar ahayd mid ka caanagayga Soomaalida iyo wadamada dariska ah kalluunkeeduna aan yuru muqargareeyo haliisu gaariyo diblu gaariyo dhismayaal qadiimi ah alcadad iyo taariikh hore oo muujinaya raadinta xeebtigan mawjud ahayn jawiga xeebta waa mid wanaagsan aaxiga waxaa ku tirsan bacaad saxiimadaha kalluumaysiga ee ku qoofran waxay muujinayaan hawl maalmeedka dadka deegaanka iyo xiriirka qotada dheer ee ay la leeyihiin badda ku soo dhawaada Laasqoray mar ayay ahayd marin istaraatiiji iyo goobariga Afrika ku xirta dunida inteeda kale waana halkii ay ka soo bilaabatay ilbaxnimada qadiimiga ah ee reer Laasqoray waxa weeye dekadu waa dekad baableeshan oo marsaa oo xoolo ka dhoofan oo xoolo ka degan baableeshan baa Laasqoray waxay ahayd dhulkii furaa oo maxaan ku rahay kastamadii waaweynaa oo cadan looga dhoofi jiray looga gooshi jiray baa wala caalami oo magac dheer baa hadda sidoo magac dheer tahay Allahu akbar waa qibladii masaajidka waana masaajidkii ugu horeeyay magaalada Laasqoray laga hirgeliyo tiirkan waa ka buuran yahay tiirarka hadda la dhisto oo lagu qabto guryaha ama masaajida ama hoolasha marka balciisna waa artaas u balaaran yahay xaggana suugu dheeryahay dhagax ayuu ka sameeyay halka waa dirshub ka sameeyay yihiin marka taas ayaa kaliftay inuu dhowr qarni jiro xadaaradihii kala duwanaa ayay la guursanaysay iyadoo la isdhaafsan jiray noocyada kala duwan ee ganacsiga iyo socodka bulshada taariikh badan bay soo martay Laasqoray anaga taariikhdeedu inta badan way naga facweyneed xoolaha laga dhoofi jiray marna laga horeysay qori iyo xatab iyo waxyaabaha laga isticmaali jiray laga gudbin jiray oo maxaa ku raad cadan laga soo qaadan jiray xoolo laga soo qaadi jiray beeyada iyo waxa sameeyay iyo waxa laga dhoofin jiray isku bedelan jiray tani waa warshada Laasqoray hilaadii 1964 ayaa dhismaheeda la bilaabay 72 waa ay dhamaatay meeshan waa la doortay oo ruushka ayaa khubara keenay meesha ugu kalluun badan bay ahayd berigi dambe ruushkii baa yimi adigu dhowr iyo 60 warshadii Laasqoray weyneed baa Laasqoray laga furay warshadaasna warshad weyn baa ahayd taariikhda gashay dadku Soomaalida inteeda badna way taqaan ummad badnina waa isugu tii ummadu haday bari tahay iyo haday reer galbeedka tahay iyo Soomaaliya waa isugu tii ruush iyo Talyaanina waxay ka ahaayeen dadka maxaan ku leeyahay khubarada ah oo shaqawadeenka warshadaha yaqaana tababarka u leh Soomaalida barayay kalluunkeeduna aan buu yurub qargareeyo haliisu gaariyo dibaduu gaariyo burbur baa ku dhacay warshad bay lahayd kalluunka 20 fish baa la oran jiray meel walba calanka ka shaqeyn jiray warshadani waxay ahayd warshadii kalluumaysi ee ugu weyneyd dawladda dhexe ee Soomaaliya waqtigiisu leeyahay laakiin waqtigan hadda la joogo waa aragtaan ilaa li xafiis oo ku yaala halkan mar ayay ahaayeen xafiisyo shaqeynaya oo loo soo shaqo tago kaliya ma xirmin xafiisyadaasi ee waxa halkaasi ku istaagay nolosha kumanaan qof oo shaqo abuur u ahayd goobtani iyagoo u kala shaqo tagi jiray xeebta iyo gudaha warshada dadka ka shaqeeya Soomaalidana ilaa iyo 750 ilaa 800 qof baa gudaheeda ka shaqeyn jiray gudaheeda kaliya ka shaqeyn jiray inta kalluumaysiga iyo gaadiidka badda ka shaqeysaahina inta aan lag bay ahay
marka wax dalkooda wax soo maray doorar badan buu ku soo maray halkan iga dambaysa waa tiyaatarkii magaalada Laasqoray ee Berisamaagi tiyaatarkaas waa taad aragtay soo sameeyay jaranjarooyin baa loo sameeyay shub ah oo la fariisto lagu caweeyay wasaw kala sareyska la iskala kala sareysa dadka ugu soo horeeya baa ugu hooseeya saan dadka dambe uga qarsoomin moogta waxay daawanayaan qolada ka dambaysa waa ka sareen jirtay filimkuna wuxuu ahaa wax lagu shaaciyo meesha ma ahayn waxaan ku raasay dhalooyin kale ifsaa loogu qabto oo cajlada ku jira buu ahaa guri dadka ka dambeeya halka ka dambaysa baa laga keenay mar ayay ahayd goob dadka lagu madadaaliyo halkan bulshadu ku caweyso markii ay soo shaqeyso maalintii aroorta warshada loo shaqo tagi jiray galabtii waa laga soo ruuxi jiray marka la iska qoqweyso nin walba isaatriyo isbahalkeeyo iska soo nasto maqribkii aba fiidka ayaa la isugu tagay halka tiyaatarka markaas fanaaniintu madadaalada iyo halka ay dadka ugu wadi jiray dadka marka dadka dhalinyarada aad buuxaysan jiray iyo dumar waa la iman jiray magaalada halkaas uu saaweyn tagay aweyska la iman jiray halkan ayaa fanaaniinta iyo dadka markaas majaajileynaya oo dadka u heesaya ama madadaalinaya ay soo istaag jireen wayna heesi jireen kulliba anigu heestay ugu horeysay oo habeen la qaadayo nin Axmed Gacanta la yiraahdo ba qaaday wadnaha isaroo dhiiga sayrinayo ku jirtay heesta marka halkaas fanaaniintu waa iman jirtay waa ka heesi jireen heesa badan bay ka qaadi jireen liilalow la wada qaad Laasqoray la wada qabay baasha hilib la wada raac darawal baabuurta ka mid baabuurta darawaliinta hore ka mid baasha hilib tiirkan waa ka buuran yahay tiirarka hadda la dhisto waxaan iska dhigay dadkan inay ma taqaanaay halkan dad fadhiyaan oo kale dad baan u heesiyaa inakeen heestaas waxa la oran jiray aan habeynay hubsan doontide heeladu waa hanan Laasqoray shirbaha lagu ciyaariyay halkan ayaa fanaaniinta iyo dadka markaas majaajileynaya oo dadka u heesaya ama madadaalinaya ay soo istaag jireen fanaanku halkaas soo istaag jiray uu ku hees jiray maanta ana fanaan iska dhigay meesha cilaan ka helay waxaan iska dhigay dadkan inay ma taqaanaay halkan dad fadhiyaan oo kale dad baan u heesiyaa inakeen timaha gudkee dib u dhaafay araxdiyo dibna hadalka qadmada ilkood dabarcas kaga yaal waa meesha lagu heesi jiray halkani waxaa weeye halkan jaranjaray leedahay xaggan laga soo koro xaggana jaranjaray ku leedahay cajiib marka waqti bay ahayd meel oo waxaa weeye bulshadu habeenkii muusig samcadaha ku xirnaa bulshadu habeenkii isugu timaado inakeen cadnaanow waa wax soo jireen oo magacay ku qaatay inay markii weligeed heelada waa laga ciyaarji oo heelada ku sutanay waqtigaas magaaladu waa camirayd magaaladana waa weyntahay waa aragtaa shacab bay leedahay oo safarkaas waraaqaley waa badan tahay intaasoo camiran iyo suuqa oo camiran iyo waqtigan oo hoosu dhac laga dareemayo dadka ku yar yahay labadaa markaan isbarbar dhigo haddii waaba waagiisuu leeyahay waqtigiisu leeyahay laakiin waqtigan hadda la joogo waa aragtaan dadku waa ku yar yahay meelaha dahabka iyo dhulkaas loo kacay waxa soo dhac baa laga dareemaya laakiin waqtiga markaan xusuusano ee meel walba camirayd habeenkii caweynta aanu halkaa u tagi jiray dadkuna isugu iman jiray heesura ka bixi jireen aroortiina dadku shaqo u dareeri jiray iyo maanta waad aragtaan waa iska maasha Allah santahay laakiin nabadgelyo aan lagu haystaa wax dhibana hadda laguma qabo laakiin hoosu dhacda waa aragtaan iyo ganacsigu inuu hoosu dhacayo waxba saasi jir markaan soo xusuusto oo aan xusuusto waqtigii aan ku jiray oo fiicnaa uu iga tigi waqti joog kale baan galay joogaas markuu kugu xumaado wax badan baa xusuusanaysaa marka waxa weeye maanta waa meel qadiimi laga guuray bulshada waa ka shaqaynay waana badnayn dad fara badanna waa kaga shaqayn jiray iyadoo aanu khalaadadii iyo khamiisyadeedii sidoo baan aroortii ka soo galabtii u shaqayn jiray aroortii ka soo noqon jiray galabtii ka soo noqon jiray quruxda markaa dadka gawaarida saaran iyo dadka ka soo baxaya iyo dadka shaqadeeda markaan xusuusto marar baan ihdaa dib u wareeraa oo xusuusta anigu xagga suugaanta markii aan wax ka sheego Laasqoray berigi hore hidii iyo dhaqanka ciyaaraha marka la ciyaarayo shirbaha marka la ciyaarayo hees baa jirtay lagu qaadi jiray aan soo gaaray marka anigu yaryareen way heestaas waxaa la oran jiray aan habeynay hubsan doontide
heeladu waa hana laas qoray shirbaha lagu ciyaari jiray moogta shirbaha lagu ciyaari jiray intaas heelada laas qoray baa la oran jiray moogta beri dambe to maxaan ku raahdaa laas qoray baabuurtu aad markay farayd maganaysa oo maxaan ku raahdaa iyana way ku jirtay ila la wada qaad laas qoray la wada qabay baasha hilib la wada raac waxaan ugu soo dhaweynaynaa aad iyo aad baddii oo halka ah iyo magaaladii iyo nabadgelyada iyo soo dhaweynta iyo wax walba iyo baddaasaad aragteen oo dad u baahan iyo xeebatan dad u baahan iyo magaalada dad u baahan inta waa ku soo dhaweynayna warshada waxaan ka xasuustaa dee warshad kalluun bee kalluunkaasi ka shaqayn jirtay kalluunkuna laba nooc buu ahaa baa looga shaqayn jiray kalluun cad iyo kalluun madow baa la yidhaha guruub toona baa la yidhaha iyo saaradiini baa la kala oran jiray bay qolada afka qalaad ku oran jiray kalluun cadka saaradiini baa la oran jiray waxaa qaadan jiray talyaani kalluun cadka oo warshada wax ka sameeyey oo warshada qayb lahaa kalluun madowgana waxaa qaadan jiray raashiya ganacsi ballaaran oo Soomaaliya ay la leedahay labada dawladood buu ah faa'iido badan ka soo gasho markii maxaan ku raahdaa warshadaha cadaha aan dhageysano oo sanadka xisaabaha la sheegayo Soomaaliya wax faa'iiday meelaha ugu faa'iido badan bay kamid ah laas qoray faa'iido badan ka soo gasho marka anagu bariga ciyaal baan hayno waxyaabahaas aad baan u xiisayn jiray waana la yaabi jiray adduunka kii dagaalkii labaad iyo kii koowaad iyo adduunka wixii maxaan ku raahdaa dawladahaasi ay soo mareen ama horumar ama maxaan ku raahdaa wax kasta noqoto baa laga soo deyn jiray hoteelkan aan imika ku suganahay shaaca ayaa la dhahaa waxa uu ka mid yahay hoteelada ugu waaweyn magaalada laas qoray waa hotel aad iyo aad u weyn in ka badan 200 oo qol ayaa ku yaal laakiin hadda uu xiran yahay mar ayuu ahaa hotel camiran oo ay dadku soo hirtaan habeen walba magacaan baa joogay hadda ma jirto burbur baa ku dhacay laas qoray maalinba si baacad eedu ugu soo baxday waayaha ayaa sida hirarka badda u rogrogay natiijaduse waa inay hoos uga dhacday halkii ay joogtay qarniyo hore waxgaradkii u soo joogay waayihii samaa waxay ku reebtay xasuus aan guurin iyo saameyn aan marnaba ka tirmayn qalbiyadooda shaqadii reer laas qoray waxaan ku talin lahaa in la soo celiyo dhaqankii iyo sida xaaladdu ahaan jirtay iyo dekadii iyo dadnimadii ee ku lahayn in la soo celiyo baan ku talinaya waxaan jeclaysan lahaa in nolosheedii hore lagu soo celiyo baan jeclaysan lahaa kula lahaa inay dee meeshooda ku soo noqdaan oo camiraan oo ka faa'iidaystaan nin kasta moogta degaankiisa ayaa ugu muhiimsan inta dadka dabadda jiraa moogta intay meelo kaleeto moogtahay waa gelin lahayeen inay meeshooda yimaadaan oo geliyaan oo baanu leenahay gacmo furan wayna soo dhaweyn